بسم الله الرحمن الرحيم شركة جرايد عاوة wuxuu ku saabsan yahay dhacdo runtii aad iyo aad u murugo badneeday oo ka dhacday deegaanka Gololey ee ka tirsan degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe dhacdadaas oo ahayd runtii dhacdo aad iyo aad u tiiranya badan waxaan rabaa marka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qoyskii ay ka dhinteen marxuumiintaasu inaan uga tacsiyeeyo oo niraado inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad u murugo badan waxaan rabaa inta kadib waxa jiray dad ku eedeynayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka dambeeyeen arrintaas waxaan rabaa marka dadkaas inaan iraado runtii waa dad aan dhihi karno waxay u eedeegayeen cadawga falalka noocaasuna ma ahan falalka suurtagal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bulshada way u adeegaan laakiin bulshada ma dilaan taas marka mar hadii ay yihiin kuwii bulshada u adeegayay hadii ay yihiin kuwii dhididkooda iyo dhiigooda u daadinayay bulshada Soomaaliyeed uguna jiray hawdka oo uga soo fogaaday qoysaskoodii kama suurta gasho qayb kamida bulshada inay dhibaateeyaan arinta marka waxaan dhihi karnaa dadka falalka noocaas ku kacay waa dad u adeegaya cadawga bulshada Soomaaliyeedna runtii waa ay gara karaan falalka noocaas oo cid ay ka suurta galaan iyo cid sameeynaysa mana ahan runtii wax uguba oo hadda muxuu ahaa sheegay bulshada Soomaaliyeed ugub ku ah cadawga ummadda Soomaaliyeed shakhsiyaad oo yaqaado ama wado oo simicna daraa ku dilo muddo dheer oo soo waday waxaan xusiisanaa boqolaal ayagoo gaaraya ayuu simicna daraa dhiigooda ku daadi jiriyay wax dheefkoodana ku qaada jiriyay falkaas marka waxaan dhihi karnaa waxa ka dambeeyay dadkan caynkaas ah waxa ka dambeeyay cadawga ummadda Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed u cadeeyo inaysan wax lug iyo reed aysan ku lahayn luga ku lahayn falka noocaas ah waxaan rabaa sidaas oo kale inaan uga faa'iideysto fursadan waxa jira ayagana dad runtii mas'uuliyiin ah oo ayagana arinta noocaas ah ku eedeynaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas waxaan dhihi karnaa waxay kala garawaayeen mucaaradnimada siyaasadeed iyo mas'uuliyadda guud ee dalkan ka saaran iyo qaranka Soomaaliyeed ka saaran ay kala garawaayeen aan dhihi karnaa runtii mas'uuliyaddu ma ahan mid bulshada been loogu sheego laakiin waa mid bulshada loogu adeego mas'uuliyaddu ma ahan mid bulshada lagu marin habaabiyo laakiin waa mid bulshada lagu hago sidaas daraadeed waxaan dhihi karnaa dadka noocaas ah waxaysan ku xisaabtamin mas'uuliyadda guud ee dalkan ka saaran mas'uuliyadda ka saaran qarankooda waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaadba aan u cadeeyo falalka noocaas inaysan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aysan ka suurta gelin eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen dadkaas qaaliga ah cadawga oo dhibaateeyana aan tacsiir runtii tiiraanya leh aan la qaybsano waxaana leenahay insha Allah ta'ala arintaas cid allaale iyo cid ka dambaysay ilaahay idankiis waxay hor imaan doonaan sharciga waana ka shaqeyn doonaa hadii aan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay wadaan baaritaano runtii aad iyo aad u xoogan hadda laftirkeedana waxaan haynaa runtii xoogag hordhac ayaan haynaa haday noqon laheeday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo haday noqon laheeday hay'adaha dawladda ee ku shaqada leh baaritaanada iyo hadii ay noqon laheeday maamulka gobolkaasba si wada jira ay hawshaas gacanaha uga la jiraan